بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين كجري maxaan ku idhaahdaa suldaankii labaad ahaa suldaankii mamaaligta sayfudiin qudus laakiin weli waxa uu yahay ku xigeen kii yaraaya cali bin aybak baa ah yaa ku magacaaban halkaa markaan marayna waxaan ku yaro leexana xoogaa mongooliyiintii iyo tataarkii baynu ku leexano sababtaynu ugu leexana waxay ahayd waa taariikh dhex gashan oo aad isku khusaysa iyaguna inay dhul badan soo qabsadeen waxay soo taagayeen badana aanu jirinba ayaynu ka soo hadalay ilaa ay ka soo gaareen Ciraaq iyo Shaam ay ka soo gaareen marka taa inaan waxoogaa taariikhdooda sii sheegno nimanka sidaa u galay adduunyadii badankeedii qabsaday Aasiya sida u dhanayd iyo Yurub ilaa Jarmalka gaaray ayuu wuxuu noqonayaa shakhsigii ugu horeeyay ee xanuun ay la kulmaan ama dharbaaxadii ugu horeysay la kulmaan waxa noqonayaa Sayfudiin Qudus buu noqonayaa marka uu xukunka la wareego marka waxa si yar wadayna xoogaa taariikhdii qolada la oran jiray Tataarka waxyaabaha marka aad u dhibaatada badnaa waxa kamid ahaa ama nasiib darrada muslimiinta ku dhacdayba in qaybtan Ciraaqi wixii ka soo dambeeyay hoggaankeeda loo dhiibay Tataarka nin la yiraahdo Holaako oo wiilashu awooga oo Hajankiis Khan kamid ahaa أنا ما أنت دوحين كسر جوجني سووا مارتي سدحدي سيويل حكوا جوك على قبيلة لكن سدحدي ويل كويا سيد عليهم ويكون مركا waxay soo gaareen marka ninka Holaako la ciidamadiisa soo gaareen diyaar Bakri oo koonfurta Turkiga ku taala iyo mayaar faqiin oo sidoo kale iyada koonfurta Turkiga ku taala dhulkaana waxay ka sameeyeen dhibaatooyin aad u fara badan ayay ka sameeyeen waxa uu soo socdaa marka waxa weeyaan Baghdad ayuu soo diyaar garoobay oo soo socdaa Baghdadna dadka joogay oo marka khaliifku yahay Abbasiyiinta mustacsim nin la yiraahdo ra'iisul wasaarihiisa ibn Alqami la yiraahdo waxa aad eeda ay taariikhanada u saaraan ninka ra'iisul wasaaraha ibn Alqami sheecu waxa ay yiraahdaan wuxuu ka qariyay wixii xaqaa'iq ah ay jiray oo dhan ayuu khaliifku ka qariyay waxaana uu tusayay inay xataa nimankan Tataarku diyaar u yihiin heshiis in lala galo inay diyaar u yihiin inay wax walba haabaani yihiin wax walba la qayaan uma aanu tusaynin isna wuxuu cuqdad badan ka qabaa la yiri dawladda sunniga iyo culimada waaweyn ee sunniga dhulka joogtay waxa soo dhan inuu gacanta ku dhigu rabay heshiis hoosana uu la lahaa oo laakiin heshiis hoos la lahaa marka oo warqadu hoos ugu diri jiray waxa uu Holaako ka dalbana si rasmi ah ayuu uga fulin jiray meesha waxa kamid ah waxyaabahaas in ciidanka khilaafada la kala diro khilaafada Abbasiyiinta ciidankeeda in la kala diro oo ciidanka maartay dhismaha dhulka iyo beeraha iyo waxyaabahaas iyo dad caadi ah inay iska noqdaan ciidan dagaalama in sideedaba meesha maartay laga waayo marka sanadkii hore markaynu qisadii Tataarka hadlaynayna waxyaabahan aad baan u soo maray laakiin hadda waan yar dul maraynaa ugu dambeyntii nimankaas waxay soo gaareen Baghdad bay soo gaareen Baghdad markii ay soo gaareen oo khaliifkii iyo dadkiisii ay baraarugeen goorahayn ay baraarugeen ayaa ciidan la isugu yeedhay waxa la soo ururiyay 40 kun baa ciidan la helay oo waliba qaar fara badan oo kamid ah dadkii mutadawiciinta ah ay yihiin oo aan diyaar ahayn ninkana ilaa 150 kun ciidana oo hubka cuslaa wata oo soo wada diyaar garoobay ayuu isna wataa waxoogaa maalmo way dagaalameen oo dadkii 40 ka isma ma bayna sahlanaanine muddo usbuuca way iska celiyeen nimankii difaaciyadii magaaladii iyo deerarkii lahaydna waxba u qabteen laakiin aakhirkii waxay noqotay Baghdad inay gacantii nimanka ku dhacdo si xun baa dadkii marka loola dhaqmay وده سحن بالله ولا رقم ونين لسكير هذا ما يعني واحد هذا قرال الله قلت المام كرام هذا الله قلت المام كرامه معني واحد ينقف كستوب بني آدم أو صعدة رجع الضمر عرور يعرّاله كبك كد عالم يكون عالم ينقف البلد له وحق جوانك وجاري هلاك وجاري
ninkii heshiiska hoose la lahaa ibn Alqami wasiirkaana wuxuu ku yiri adiga khaliifka iyo dadka fuqahada iyo dadka waxgaradka ee reer Baghdad iyo dadka maaragtay ganacsatada oo idin yeeraya sidoo heshiis idin la saxeexdo amarka soo baxayna waxa weeyaan qof walba in la dilo marka khaliifkii iyo dad waaweyn oo culimo ah iyo dad ganacsato ah iyo dadkii madaxweynta Baghdad ah oo dhan markay u tageen ninkii khaliifka ahaa oo arkaya dadkii ilaa 400 qof ay haayeen baa la yiraahdaa dadka marka la soo ururiyay khaliifkii mooyaan 400 qof ee kala baalkii lagu gowracay khaliifkii baa la reebay oo isaga maxaa loo reebayaa wala la sugayaa de maaragtay inuu daawado horta baldarkiisa sida loola dhaqmayo su'aalaha weydiiyay marka holaaka waxa kamid ahaa maxaad u diyaar garoobi weyday adigoo dawlad weyn laga sheekeeyo 600 sanadood wax ku dhow dawladdiinu ay jirto waad ogeyd waxa kugu soo socda ciidanka kugu soo socda inta walaga maxaad u diyaar garoobi weyday de waan diyaar garoobay buu been baad sheegaysaa waxa ka diyaar garooday war waxaanoo dahab qaado waxaanoo adooma qaado magaalada ba iska qaado iska kaaya daabuul de taa kuma weydiisanayo buu horaaban u yeeshay buu kuwa waxaan adiga ku weydiinayaba dahabkan iyo adoontan iyo hataa adaaban kulahay buu maanta adiga anaa kule marka waxaan ku weydiisanayaa meesha ma yaala buu marka isagiina wuxuu amray markii dambe ilaa 3 wiil u dhalay iyo dhowr gabdhood oo lahaana uu qaatay inamadiina dadka la gowracay baa lagu daray wiilashii laakiin gabdhii waa la qaxaystay iyaga si la yiri markii dambe mooy ninkii khaliifka musta'sim wuxuu ku sameeyay isagana jawaan weyn baa lagu dhaxrido isaga la eg jawaankii marka lagu dhaxriday buu askartiisii wuxuu yiri sidaa u sii dulmaro soo dulmara marka ninka ayaan isaga dhiig laga daadin haja jaba una nafta nafta kaga baxdo marka askartii baa sii dulmartaa mar way soo dulmaraan markii deetaa iyo xanuun ba laga waayay iyo halkan la taabtay bas nafta ka baxda leeyahay marka wabiga la iskaga tooray marka bal iskaga tagay inkastoo taariikhnada qaarkoodna ay yiraahdaan meel buu dhigay oo dadka wixii meelaha laga soo qabto maaragtay tusi jiray sidaasay magaaladii Baghdad ahayd ay u galeen oo ay wax walba ay u baabiyeen sida ibn Kathir oo kaliya uu ku tilmaamay waxaad yani ka murugood ay noqotay ilaa magaaladii markii dambe xanuun uu ka dilaacay oo xanuunkii ka dilaacay daacuunkii ka dhashay ilaa Shaam dad magaalooyinka jooga dad badan ay ku geeriyoodeen ninkii wasiirka ahaa ee shiiciga ahaa oo isagu islahaday waxba marta lagu qaban doonaa oo ma garanaysaa mar hadaad qorshahoogi iyaga u fulisay dawladka markay Ciraaq waagi dhawdimka markii lagu duulayay dad baa la socday Mareykanka dadkii la socday Mareykanku sidoo la dhaqmay waxa iska hayaan inuu askariga Mareykanka ugu hooseeyo aanu qadarinin baa isagiina odaygiina saanu baa ibn Alqami loo galay askariga yar ee Tataarka ugu hooseeya yaa waxaan malayacnigiina meesha naga horraaq lahaa ninkii waagi horena inta soo fardaa iyo inta soo ciidan iyo ra'iisul wasaariga meesha maraya la oran jiray ayaa maanta waxa noqotay in lagu jeesto noqday markii dambe wuxuu murugu u dhintay baa la yiraahdaa sida maartay nimanka ay ula dhaqmeen muruga daraadeed buu dhowr bilood kadib isagina ay nafta uga baxday Baghdad markii ay gacantooda sida u gashay nimankaas ayana way iskaga guureentay magaalo wada baqti gabigeediiba noqotay in dhinac laga degan mooyaane magaaladii lama degaan karo banaan bay iyaguna magaaladii ay uga baxeen marka dhulkii muslimiinta wixii Baghdad xaga ka xigay saas oo dayacmay waa Baghdad waa Iran waa Afghanistan waa Tajikistan waa Uzbekistan waa ilaa China dhulkii muslimiinta ay lahaayeen ama ummado kale ba ay lahaayeen saas iyo dayacmeen loo qaato sida maanta wada maarda dhul badan oo muslimiintu ay leeyihiin ay u dayacmeen loo qaato xadaaradii islaamkeeda Baghdad ka jirtayna aad bay meeshaas ugu baabaaday oo sidan dadka loo laayay baa iyadiina xadaaradii loo baabiyo kutubtii iyo wixii maktabadaha yaalay oo de malaayiin koobi ah oo waaga de gacanta lagu qori jiray kutubta lagu qori jiray inta soo qaadeen bay wabiga ku qoreen markaas wabiga kaga talaabeen bariis ka dhigteen wabigii bay isku bedelay markaa madow isku bedelay holaaka marka waxa la yiraahdaa inkastoo soo gaaray markii dambe ilaa Dimashq uu soo gaaray laakiin markan wuxuu degay Hamadan buu isagu xarun ka dhigtay oo magaalada madax u noqotay dhulka Shaam
وسوريا iyo Lebanon iyo Palestine dhulka ay ku yaalaan qaybaha xeebta inta Palestine xeebta waxa haysta nimankii Sarabiyiinta baa jooga magaalooyin kamid ah Akka iyo Haifa iyo Yafa iyo magaalooyinkaas laakiin dhulka kale imaaradihii reer Ayub ee wiilashii Salaaxdiin ku abtirsanayay ee deganaa iyaga mowqifkoodu wuxuu ahaa iyagaaba u kala tartamayo iyo laftoodu inay isku soo duulaan rabo oo qaar kood baa warqado u dirayo oo Nasir Yusuf oo kala warqad intuu diray wuxuu leeyahay igu taageer sidii aan Masar u qabsan lahayn mamaaligta uga qabsan lahaa walaku u dirsanaya warqad ninka wax lagu aamina aan lahayn oo haduu bari Dimashq uu yimaado isaga iyo dadka reer Dimashq oo wadada baabiinay ayuu leeyahay kaale ugu taageer inaad ila soo qabato dawladdeediina xaqaas maartay wixii ka jiray marka wuxuu diray wiil isagu dhalo Aziz looran jiray iyo niman umara hadiyadana uu raaciyay nasiib darre ku noqoto halkii uu warqada uu maartay iyo hadiyada loo diray iyo waxa ka soo dhaweyn laawaba ka xanaaqayba ninkii hoolaad aro ka sii qaaday wixii wuxuu ku yiraahday wax warqad la soo dirdiray iyo boqortooyo sheekada iyo waxa lagama sheekeeyo anaga boqortooyo kaliya iyo boqor kaliya oo adduunka ka jiray taayada hada taageerayso adigu oo aan wax shardiye iyo wax hadal midna aan ku xidhin ergadeydana aan habsaaminin hadalkana aan dheerayn waa inaad ogolaato hadii kale iska diyaar garow buu waan kugu soo socdaa waska ka celin karayso hadaad cirka u boodo waan ka daba imanaya hadaad buuraha fuusho waan ka soo daba fuulay hadaad dhulka hoos u gasho waa hoos baan kuula soo galay hanjabaad buu soo diray marka nimankii mamaaligta la oran jiray mamaalig al-bahriya la oran jiray oo rugnudiin bay barisiya ka mid yihiin way la joogaan waxay ku yiraahdeen warintii aynu ciidan heli karro aynu iska diyaarsano ninkaana waxba ha aaminin aan la dagaalano hadii aad cid kaalmo weydiisanaysana nimanka imika Masar joogay mamaaligta ay anaguba ka soo cararay iyagu de islaamnimo ay naga dhaxaysay iyaga wax weydiisay way ku yiraahdeen ninkana ha aaminin bay ku yiraahdeen halkaas isku diideen marka Nasir iyo nimankii mamaaligta inkastoo la isku dayay inuu Nasir markii dambe wax isku dayo ciidan iyo wax yar habeeyo oo qoyga Dimashq meel Brazil la yiraahdo ay tageen halka markay joogaan bay qaar la taliyaashiis ka mid ku yiraahdeen warninka inuu la heshiin karaa wuxuu doonaba ha sameeyee aynu maaragtay iska sasabano warqadan markaa u soo diray hawlaad oo Nasir u soo diray warqada wuxuu leeyahay الذي يعلم به ملك الناصر صاحب حلب وحو اوغياhay buuri boqorka Nasir la yiraahdo xalab joogay inaan Baghdad safety ilaahay ku furanay dadinku waa gaalada moogtay hadan balada u fiirso aayadaha iyo xudalishanay iyo hadallada soo hadlo dagaalyahanadooda waan laynay ismeediina waan dunduminay dadkii deganaana waan wada qafaalanay sida uu ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون أي شيء دليل ورقدي سكوت قرية يا سو إلهي أوليه يقول مركب بقرض الجلام مجاله ويبابيا dadkii sharafta lahaana waxay ka dhigaan dad dulaysan sidaasana ka yeelaan khaliif geedina waan keenay waan soo horjoojinay buu su'aalaan weydiinay dhowr kalima been buu noo sheegay waxa ku waajibay buu markaa inuu murugoodo annagana waxa nagu waajibay buu inaan dilade markaa mar hadii isagu murugoonayba inaan dilaan iyo ku waajibtay wuxuu urursaday buu wax dahabkii iyo wixii qiimaha lahaa oo dhan laakiin naftiisu mid xun bay ahayd buu dahabkii wixii qiimaha lahaa uu urursaday laakiin naftiisa mid liidatay ahayd buu isaga xoolo urursaday ragna ma diyaarinin buu annaga waxaan soo gaadhay buu inuu arintoodu weyn tahay oo khatar arintoodu ay tahay laakiin sidaan ugu nimidnay ilaahay baan ka magan galaynaa buu sidaan ugu nimidnay siday ahaayeen ilaahay baan ka magan galaynaa buu mana sheeganayna buu nacuudu billahi min at-tamaam wal kamal lana annagu xataa dhameystirana isma sheeganayna buu gabay uu halka ku soo taxagabaya ودميرات dadka carabta gabayada yaqaanayso gabay ma garanayo ku soo darsaday warqada waru kitaabkayga warqadayda markaad akhrido adiga iyo ragaaga iyo xoolahaaga soo degdegay haday cidiina waa inaad la soo degdegtaan buu boqorka dhulka ee dhulka dhan ba xukuma si aad sharkiisa uga nabad gasho khayrkiisana aad u hesho sida uu ilaahay kitaabkiisa casiiska ku yiri wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa sida uu ilaahay kitaabkiisa quraanka ku sheegay si aad u hesho waa inaad soo degdegtaa buu
ergadayda hay soo taagin ha carqaladaynin sidaad hore u carqaladaysay buu ku yaanu ku soo diray inaad si fiican ragga u soo aad u soo dirto iyo inaadan hor joogsanin waxa kale oo soo gaadhay buu ganacsatada reer Shaam inay jabeen oo xoolahoogii iyo dumarkoodii iyo caruurtoodii kirawaan sara ay ula qaxeen kirawaan sara tataarka waxa yaqaaneen Masar halkaas ay ula qaxeen buu haday buuraha fuulaan waa la duminaynaa buu haday dhulka hoos u galaana waan ka daba galaynaa naasir markuu warqada arkay wixii isagu ka sasabanayay inuu meel ka gaari waayay wuxuu ogaaday muslimiinta ixtiraamkoodina inuu lumiyay oo waa ka la ogaaday muslimiintii la qaarna way la joogan qaarna warkiisa way maqlayaan inuu hoola ka sasabanayay oo laha Masar kaale ay la soo dhici kula ixtiraamka muslimiinta uu waayay inay nimankii wax u qabtaan markuu waayay ayuu warqad isaguna qoray warqadu cay iyo lacnadu ka buuxinay oo uu diray baalkii hoola ka uu diray maxay qabanaysaa warqadu wada iska caytan taw waxaynu hadda ku soo noqonaynaa Suldaan Qudus iyo Kiyara ee ilmaha yaraa uu casilay holaaka markuu sida dhulkii u soo qabsaday waxa isna kor soo kacayay Sayfuddin Qudus ayaa isna arintiisu kor soo kacaysay dadka oo dhan waxay u arkayaan ka yar inuu magac iska yahay isagu wadanka ka xukumeeyo inuu yahay ka yarada ilmo yar oo iska caruur u baaha kolkii ay arintaasi soo gaadhay in Masar ee baashi Baghdad la qabsaday oo Ciraaq oo dhan nimanka ay qabsadeen haddana ilaa Shaam ku soo fooleeyeen 656 ama 1257 holaako ergadiisina inay u digtay Naasir Yuusuf la soo gaadhay oo waxoogaa ciidan yar oo urursadayna ay maaragtay soo dhaafeenba wabiga Furaad dhinaciisa ka ay joogaan ayuu Naasir wuxuu soo diray nin faqiih ahaa oo taariikhyahan ahaa oo la oran jiray Kamaaluddin ibn al-Adim ayuu Masar soo diray warqadii ibn al-Adim wuxuu u keenay suldaankii yaraa oo markaa wali kursiga ku fadhiya iyo Qudus oo ku xigeenkiisa iyo raggii waaweynaa culimada ahaa iyo saraakiishii ciidamada iyo meesha qalcada la yiraahdo ugu keenay warqada waxa ku qoran in maaragtay reer Masar haday yihiin gargaar inay la yimaadaan oo ay maanta muslimiintii u soo gurmadaan cid iyagu nool wax qaban kartaaba iyaga inay yihiin Naasir Yuusuf hadii aan ahayn aniguna halkaas aan joognaa berri waa nala jabsanaya hadaydan idinku naga soo gaadhay warqada markii halka la soo diray ayaa wuxuu sameeyay dadkii dhaxdooda ayuu ku weydiiyay Sayfuddin Qudus waasay taariikhnada qaarkood sheegaan in loo baahan yahay nin suldaana oo awood leh oo wax kari kara cadawga inuu umada ka dhaciyo umadana isku keeni kara suldaan yar oo caruurna inaan hadda loo baahnayn marka nimankii ilaaliyayaasha ahaa iyo wax taageersana way jiraan meesha waa la isku khilaafi karaa waxoogaa dib u yar dhigtay markii taladii culimadiina ay ku raaceen dadkii waaweynaana qaar kamid ay ku raaceen haddana inuu yiraahdo suldaankii Rawan casilay dib u dhigay ragii isaga markaa ilaalinayay markii ay maalintii labaad oo sabti ahayd ugaarsi ay u baxeen ayuu suldaankii iyo walaalkii iyo hooyadiiba xiray xukunkiina inuu soo wareegay oo ku dhawaaqay culimadii buu isugu yeeray Sheekh Ciis bin Abdusalaam iyo culimo kale waaweyn ay ku jiraan markaas wuxuu yiri ummadda waxa loo baahan yahay buu yiri ciidanka intii la diyaar gareyn karo waa la diyaar gareyn oo la tababari laakiin in ummaddu wixii hantay ay heli kartaba loogu deeqo dawladda loo baahan yahay marka sheekha ugu weyn ee waqtiga ummadda muslimiinta joogana waa Sheekh Al-Ciis bin Abdusalaam fatwa aad u adag buu isna soo jeediyay wuxuu yiri haddii ragga ciidamada iyo saraakiisha dawladda iyo wasiirradu dhamaantood kolka la isku keen wada daro wixii hanti guriyaha idin taala ama wax aad isku qorxisaan darba xataa ha noqotee aad kala simantaan buu dadka guud aad kala simantaan ee qalabka aad ku dagaalamaysan faraska iyo seefta iyo leebkiya qaansada iyo waxa uu idin ka haraan oo wax kale aad weydaan ummadda wax waa la weydiisan karaa buu markaa
eegada waa laga qaadan karaa ma ummadda wax waa la weydiisan karaa buu horta marka bal adiga suldaanka ka bilow wasiiradaada taliyayaasha ciidamada waxa guriya hanti idin taala idinku halka banaanka horta soo dhiga buu waa la soo dhigay hanti badan bay noqotay waxa la laakiin wali ciidan diyaar gareynteeda waxa ay laga helay guriyaha amiirada iyo saraakiisha laga helay kuma filla haddaba dadkana waa in la yiraahdo ku tabaruca inta masaajidda iyo meelaha laga hadlo dadkiina waa inay ku tabarucaan marka iyaguna waxay heli karaan dadka qof walba wax iskaga tabarucaya qof walba wax buu bixiyay fatwo kale hadana sheekhi keeno xuri nimankiinani adoon baa tihiin buu annaguna dad xoranahay buu deenin adoonihi sidoo ummadana hogaamini oo ummadana horgale horta idinku bal dad xor noqda deewaya sheekh seen xorowna rag qaarkood haday marka uu sayfudiin qudus meesha aanu joogi lahayn oo rag kale joogi lahayn sheekh qoorta ka gooyon baa la oran lahaa ama xidha la oran lahaa wuxuu idinka horta hal idin iibiyo buu madaxweynaha ka bilow suldaanka ka bilow wasiiradiisa saraakiisha ciidamada lacag haleed ka tirsaday buu horta idinku hal idin iibiyo oo ninkan misal ku gadaysa waa suldaanka dhanaada suldaanka intana lagu gadaya kadibna qofka ku iibsaday hay yiraahdo waa xor baa tahay kolka baad dib u saarto waa la wada iibiyay amiiradii iyo suldaanka oo dhan lacagtina waxa lagu darayaa marka tan diyaar garowga lagu darayaa idinkuna xor baa tiin baa la yidhi nimanku daawadi baa istaano lama oran karo jagadii baa daleedin ka qaaday lama oran karo marka ka yari wuxuu xukumayaa la yidhi 2 sanadood iyo 8 bilood iyo dhowr ayaamood dhowr maalmood wuxuu bilaabay marka qudus dhacdadii ayna jaaluut loorin jiray inuu diyaar garoobo waxa marka ciidan mutadawiciin oo fara badan baa yimiday inkastoo dadku cabsi ay haysay cabsi baa jirtay cabsi fara badan baa dadka haysay oo inta laga hortagay nimanka Mongooliyiinta dadka cabsi baa ka haysay balaayada ay sameeyeen iyo dhulku waxay ku sameeyeen iyagiina imaka intay soo dhaafeen Shaam oo iyay Falastiin soo qabsadeen oo waxay xidkii Masar bay soo joogaan Masar mooy haday Masar qabsadaana ee Afrika dhax qaadayaan oo Yurubna halkaas ka galayaan ma joogniman joogsanaya ma dadkiina cabsi baa markaa wada haysay nimankii Baybaris iyo ninkii kale muxuu ahaa Nasir Yusufna inkastoo markii uu qudus ku yiri waan idin soo gurmano ciidan baan idin soo diray hadii aad xataa iga shakisan tahay ciidanka intaan ka haro ayaad adigu sida doonto u maamulan buur hadaa doonto adigu qaahirad iman buur anna waan hogaamin ciidanka nimankaas aan la dagaalamay buur adigu hataa xukunka la wareeg buur ninkan nin xukunaad sidaas u jecel qudus ma ahan kaliya in la dadka laga difaaco nimanka rabay marka in ummadii muslimiinta ay la mideeyo waxa kale sameeyay kooxdan wuxuu ogaa baxriyada la yiraahdo ha tira yaraadaan laakiin niman tayale ahaayeen Baybaris iyo groupka la socdaay tiradu 3 kama badnayn laakiin oo daniman waa horena isdiideen bay ahaayeen oo cuqdad iyo dhibaato ay dhaxmartay warqad buu diro wuxuu yiri hadii aad halkiina aad joogtaan wax ku difaaci kartaan sameeya hadii kalena ummadda muslimiintu Masar way maanta ku diyaar garoobaysaa halkan kaalaya waan ka shakisan oo dilaysaa bay ku yiraahdeen oo dhaartay inuu dilaynin oo maanta loo baahan yahay ummadda muslimiintu inay midoodo wixii hore dhan la iska iloobo iyagu taamirkay ogaadeen bay xidhaan Nasir kulay rajo ma lahayn aynu iskaga tagnay bay yiraahdeen marka waa inuu halka iyo Masar aynu tagno ninkii Nasir radii kolkay nimankan ka soo tageen ciidankiisii baa ka kala tagay meel la yiraahdo Waadi Muusa la yiraahdo oo koonfurta Qudus ku taala ayuu degay meesha isagoo halka degan oo halka ku dhundhoonta ayaa waxa ugu yimiday ciidan Tataara isna dad yar baa la joogay uu isdiibo la qabtay hoolaaka loo geeyay marka oo Tabriis marka magaalo madax ka dhigtay hoolaaka uu soo dhaweeyay isaga iyo inankiisii dadka kale soo qabtay uu soo dhaweeyo gurigu dejiyo halkaas uu yiro maxaabiista dadka laakiin maxaabiista ku jirtaa uu yiri halkaas maxaabistu ku hayay Baybaris iyo dadkii la socdayna waxay u tageen Qudus bay sayfdiin Qudus bay u tageen istaad buu soo dhaweeyay gobol Qalyub la yiraahdo oo ku yaala bartamaha Masar uu siiyay isagoo wuxuu ku yiri adiga iyo cid kula socota iskale gurigii ra'iisul wasaaraha uu dajiyay taliyayaasha ciidamadana kamid baa tahay uu ciidanka hogaaminay wixii diyaar garow aan sameeynayna waa inaan diyaar garow sameeynaa iyagoo halka diyaar garowga ku jira sayfdiin Qudus baa waxa loo soo diray warqad uu soo diray maxaa la yiraahdaa hoolaako tiide lamida maxaan ku yiraahdaa loo soo diray Nasir Yusuf loo soo diray hoolaaka marka
إنه ويررون الربا وحكوا بالعبا باسمك اللهم باسط الأرض والرافع السماء إلهي ما عيسى كن بالعبا النبي ودولك في ديي سمادنا تاجي والقال كان ضوء في رسالة وحلو يقول بقر كايسكو مجعابي مضفر قدس إنه كمدي هاي أضانتا وشو يقول أضانتي نجا صوب حسطي سيفايا كسو عرف هذول كان سوق بسناي إما كانوا وكن عميسانية يقول مال صلاة دين تينينا إن الله نبى دوك تهيبول دولة دينينا إن بابي نبى دوك تهيبول وعيوجي يقول ذاتك الرير مصر يدتك أجي ما دابا إن أنا نقول نهاي عيدا كي إلهي يدول كي سجوجي على ذي سنة إلهي نجا أبوري نقول عيدا كي إلهي نهاي على ذي سنة إلهي نجا أبوري إلهي إنه نقص اللي ذا عدة على ذي سكوت عضي إلهي أنا نقص اللي ذاو عدة على ذي سكوت عضي وأنا قاعد على ذي فلين إلهي بلي وإن أذكر عبرة قادتان بقول وحد عن صوب دول صوم مرين سواق بسنة وردن قوان كيجو سيدو يهنا وين أدوقاتان بقول أرنتينا وين أدنود يبتان أنت أيضا فشل من أيضا هجوبت اللي يدنك قادين أيضا مروجون بقول مركان خلط كيدون كنا قندونه أنا قومنا حديثنا عيد أيدا عيد أسكتودنا ومد بعنا واد مقاسين بقول دول كودرنا فرناي فساد أردنا إن كان نظيف الناي الضوء أردنا إن الله الناي إذن كواحد صارين بحثتان أنا قلنا إن سوق قبرنا هذا بقى الكيس كله ما نيسان وما شيء إذن بدبادني ودن كيس كله نبض قليسان سيفا يجمع لك بحثتان مجران عند إذن نجاكين بدبادين كرتان مجرتان فرضها يجي واحد قاعد مجران ليب كي يجو وادنا بيو سيفا يجو واهن قريو wadnaha iyagu waa buuro oo kale tirada iyadu waa quruuraha oo kale dhufaysna difaac naga celiya ma jiro ciidan iska ay hortaay karaan ma jiro baryada habaarka aadna habaaraysan laydinka yeeli maayo maxaa yeelay xaraan bad cunteen hada soo ducada suurada lagu aqbalo soo xalaasha kamid maayn marka baryada aad baridaan nabi kuleeyahay gaalkani hadaadna habaartantaan oo ilaahu balaayo ku rideelay haydi ka aqbali maayo xaraan bad cunteen buu oo wuxuu yiri hadalkiina hadal qurmay buu noqday ballantiina waad ka baxdeen iimaankiina waad ka tagteen caaqnimo iyo caasinimo dhexdiina ku badatay marka dulinimo iyo hoo ku bishaarayst maanta cadaab leeyahay ku abaal marinaya balaayo qaba saadulka ugu kibrayseen xaq darrada dulka ugu kibrayseen iyo cadaab leeyahay ku abaal marinaya iyo faasiqnimada aad sameeyseen wasayalamu alladina zalamu ay munqalabin yanqalibun way ogaan doonaan kuwa daalimiintii meesha ay u noqonayaan qofka anaga dagaalka iyaga doona uu murugoodaa buu qofka dagaalka iyaga doona uu murugoodaa ka nabadgelyadeeda doonaan oo nabad galaa وهدي أشردك يجا يشان أودنا أضيعدان بد نبض كليسان هدي كلا واحد نصارا بعدين صارا وين إذا الله يلاهم حضرنا خلافتنا وين ندين هلاك عيدنا كبد بادي سنة مجرد فقد حضر من أندر قفكي دقي كم دقين واحد صغناتي بود أكتين إذن كو واحد ناطق أنا بود قالا إن أنا هاي أنا واحد ندين نقانا فاجرين نتين بدون هذا قال الله تقارن أنا أقول فاجرين باردين نقارنا إلى قدر كإلهنا وحكمه بوري أو سيدا كوجو أنت هاي إن عدي فاجرين تعالى الله يكفراد الله يسوع قال هذا وين ليس فاجرين وحين ترى بدل لأنك أكتئاب بغيره كينا شرفت لنا أكتئاب أنك وحكيه مدين طيب دايما كيس قاعد هذا الكهديريننا جوابتنا لسه دقدقة دقالكم أنتوا نهورين أشركوا أن ينسوا قارين ميلاد كجبت بعدان أيضا هرين واحد كعرين أيضا هيسن كداهي إني سياسي إنه واحد إذا كمان أنا إذا كمان كروينين أقول كينو نقول بالميت خالي وح واحد من الجواي وعدالة بان إذا سمينا يقول مربع هذان إذا صاد الربع طب وندين دقنيبة وحكلوا إذا هري متشرو والسلام علينا وعليكم وعلى من أطاع الهدى وخشي العواقب الردى وأضاع الملك الأعلى ملك الأعلى يسوق إلهي ومجد دي وبقر كودا إيجا يوجده نينكي قدسها مركي ورقدي لو آخري أو هل كان أي أمير ردي وزير ردي دولة دي سوى جوجان وباي برس يرجع شيء كم يدهين
ayuu nimankii tataarka afar nin bay ahaayeen oo midwida yaraaba leeyo aad buu caruur u ahaa baa leeyo dhowr iyo 10 jir buu ahaa wuxuu ku yiri bal idinku yarsuga waxaan la tashanaynaa warqadii aan idin diyaarin lahayn baan tashanaynaa laakiin xanaaq buu waxa la yiri gebigiisu karaya ragii buu ku yiri madaxda dawladda ahaa dhageysta go'aan waxaan ku gaaray buu yiri 3 nin oo kamid ah ragga inaan dilo ka yarna adoonteedan ku darsanaya midna waa ma dirayo وهل ورقد إريكلي يكون قرنتها وانو درينا وآه جواب تيدو معها واحد مقاشو ايوا واحد عرقتو انتا ما قرننا رجي وكود راعينا ديل بيدادي ما نما قصدان واحد جواد النص وقادي بقى لسي دينيا وإذا رد إرقيد اللي من لين جرين ورقوا والله حل الله يا ليه ولا بدك يراعي قرطة لقى قوي نما والله صو قالوا يجوا اسمودي ورقد بقى ليدين دي بيلي بقى قرطة لقى قوي أفرتو دي markaan saddex albaab oo magaalada ay kala lahayd iyo meedadkoodii la kala suray madaxyadoodiina saddex meelood baa la kala suray inta la soo gooyay kororkoodii hadii dadka reer Masar marka ay cabsi ku jirtay oo tataarka ay ka cabsanayeen de ergadoodiiba waa la laayay maxaa idin yaala meesha ya waa in la diyaar garoobo oo sheeko kale meesha ma taalo marka maqriisi oo kala tilmaamay wuxuu yiri mid waxa la suuqi fardaha suuqa la oran jiray la dhigay buuro qalcad agteeda ku yaalay midna waxa la suray buu Zuwayla albaab la yiraahdo midna baab nasr baa la suray buu halkaas madaxyadu saaraan jireen buu halkaas la oran jiray buu laga madajinayo meesha oo laga qaadayo dadku waxa ku qaataan guntiga gunaanadkii suldaan qudus wuxuu diyaariyay ciidan wixii uu heli karay iyo askartii iyo wixii oo dhan iyo kulli ayuu diyaariyay ciidanka markii uu diyaariyay ayaa meel saarixiye la yiraahdo oo waqooyiga qaahira ku taalay oo xagga Siinay marka loo sii baxaya ayaa lagu ballamay halkii baa ciidankii la isugu wada yimiday laakiin nin amiiradii ciidanka kamida oo yiraahdo diyaar baan ahay oo waan baxayaa oo nimanka waan weeraraya waa la waayay si kastuu u bariyay wax kastuu kula hadlay war ilaahay intaad ka cabsataan waxaad xasuusataan buu muslimiinta wixii lagu soo sameeyay maantana intan haday idinku dambigiinu idin saaraan buu ku yiri hadaad waxba qaban weydaan wuu kari way u dhaqaajin waay aakhirkii wuxuu yiri hadaba ninkii diyaar ah oo iraac kii kaloona iska noqcidna lama khasbayo rag badan baa yiri wallahi waan iska baxsanaynaa oo diyaar ma nihiin anagoo dagaalkan nimankan balaayada lagu sheegay ma gari karaa hawsheed habeennimadii markay shaqadii dhaxatay uu dhawaaqay wuxuu yiri anigu diyaar baan ahay faraskayga haddaan fuulay waan dhaqaajinaya kii diyaar oo iraac kii kaloona iska noqo rag fara badan baa yiri waryahay warbaahintu suldaankii leeyahay waan dhaqaaqaya halka waa ceebe aynu iska raacno ragna way yar maaragtay ku yar adkaatay oo way iska joogeen aroortii bay ka daba tageen waxay yiraahdaan marka taariikhyahanadu laba arimood ayuu ka lahaa isagu inaan dagaal Masar dhaxdeeda ka dhicin waa midda koowaad Masar horta inayna goob dagaal noqonin ayuu doonayay waday dadasho soo gaadho burbur iyo dhibaato iyo dad la laayay iyo dhacayo de marka meel kolba la dhax carray dhibaatada badanaysa talabaad nimankan hadiya jeer waxay ka faa'iideystaan ciidankoodu iyagoon baa soo duulaya cid ku soo duulaysa mabay aragba inuu isagii ku duulo oo iyagoo iska jooga goobihii ay qabsadeen ee Falastiiniya ay kamid ahayd jooga ay arkaan ciidankii muslimiinta dul jooga oo ay arkaan labadii arrimood bana uu sameeyay konton kuna ciidankiisa kamida ayaa markii uu wareysay Gaza ka bilaabayna buu konton kuna ciidankiisa kamida ayuu Bible school adigu hogaami Gaza ka sii bilow buu dhaado inta anagu ciidanka kale aan soo alaabta soo gurguranayna waxa culus soo qaadanayna waxa tirada joogtaay tataarka marka Gaza sii joogtaana ma badna waa 3 kun weeyaan kana konton kun buu wataa kolkay arkeen taagagii iyo dhulkii hooseeyay oo wada qarsoomay ciidanuun ay qoladii cararaysi yiraahdeen xaga ka maray xaga ka maray khalaas 3 kun ba iyagoon warba meel la geenin ayaa wax la qabtay wax la dilaa laga dhigay fariin baa loo soo diray suldaanka waxa soo socda waxa la yiraahdaa Gaza waan gacantan ku haynaa marka iyagu baleenka dagaalka say u dajisteen hoosta xeebta waa inay ka wareegaan caka ay sii maraan cakana Faransiis iyo balaaya haysta nimankii Faransiiska meesha joogay waxay yiraahdaan anaguna taageeradiina ka qayb qaadanaa ciidan baan ku dareynaa musiibadani wax la aaminaya ma war waxba hana taageerina iyagana ha taageerina wixii aan sahay magaalada uga baahno naga iibiyo waliba haddaan hal askari oo qalcadiina ka soo baxay aragno qoortan ka goynina waxaan u qaadanaynaa duulaan nagu soo qaadanay idinkan duulaan idinku soo qaadanaa baa lagu yiri waxba hana taageerina anaga nimankana taageerina laakiin waxaan magaalada uga baahno
naga iibiya waxaan idin siiyay idaan nasiiya de markaan u baahan ciidan inta la ugu wataa waa dhowr boqol oo kun gacanta la taago waxa la yiri bal waxaad sahay u baahantiina qaata iskana socda qoladiina way maqleen marka hogaamiyii weynaa Tataarka boqorkoodii baa dhintay hoolaako marka Tabriis joogana halkii intuu ka sii tagay wuxuu rabay maadaama hawlo waaweyn isku qabtay in isaga la doorto walaalkii qabiilada la yiraahdo la doortay isagoo wax magaaladii baan ka bixin oo iska soo noqday marka walaalkiisii iska joogay meeshana wuxuu Dimashq iyo dhulkana kaga tagay nin la yiraahdo Katabqaana way la yiraahdo Kristaan ahaa oo saraakiisha ciidamada Tataarka aadka u khatarta ahaa buu kaga tagay kuwii markay maqleen ayay iyaguna ciidankii wixii Lebanon joogay iyo wixii Suuriya joogay soo ururiyeen way soo baxeen iyaguna 200 kun bay gaarayaan ciidankoodu kolkay ciidankiisii arkeen sahanka ahay ciidankan masaarida soo baxay tirada badan ayaa waxay ku yiraahdeen war ciidankani wuu badan yahay aadna way u soo diyaar garoobeen hoolaaka inoogu direen ciidan maxaan ku yiraahdaa kaalmo war waxa ka baxay kuwa naqaano soo maaha dadkeen eriin jireen ilaa halkii bartamaha Asia ka soo bilowna ilaa halkan dadkeen eriin jireen soo maaha war inta ku daba dhacayna iska daayay nimankan waa niman ay hadda ka go'an tahay kolkii hore wax la yar kala laalaadaba hadda nin walba waxay ka go'an tahay inuu ama dhinto ama guuleysto halkaan bay u taagan tahay wax kale jooga ma jiraan wala soo socday oo meesha Cayn Jaaluut la yiraahday ee ay musiibadu nimankii ku qabsatay agteeda markii la yimiday waxay u dhaxaysaa Nablus iyo magaalada la yiraahdo Miisaan ama Janiin iyo Nablus Janiin iyo Nablus banaan u dhaxeeyo way banaanka taagag baa Ilaahay ku hareereeyay taagagaas dhir bay leeyihiin meeshan hooseyse ee Cayn Jaaluudka lagu magacaabay waa dooxayro hooseyso carab caado banaan oo aanay waxba ka bixin way kontonkii kuna uu watay Baybaris baa la yiri adigu halka joogso ciidankii kale ee badnaana hareeraha taagaga ayuu joogsaday markaas ciidamadu waxay xidhan yihiin labisyo kala duwan ciidankan Baybaris wataa labis gooni ay wataan qaar waxay wataan labis wada dooga qaar waxay wataan wada casaan qaar casaan iyo doog bay isla xidhan yihiin qaar koofiyadahooga cas kolka ciidamadu marka qayb kala leeyihiin qolob baanbay marka taagan afa meelaha maartay taagaga sokadeeda ayaa iyaguna taagan oo ciidankan kontonka kuna u dhow ciidanka waxa lagu yiri amarka la siiyay Baybaris iyo ciidankiisu waxa weeyaan maalin gelinkeed ugu yaraan inaad dagaalantaan oo ay iska celinayaan baad moodaysaa 200 kun oo Tataar haday meel soo wada galaan kolka maalinka gelinkeeda hore marka soo dagaalantaan gelinkeeda dambana soo jaba waxay kula dagaalamayaan afaafka laga soo galo meeshan maxaa ku Cayn Jaaluud leeyahay banaan ayay kula dagaalamayaan kolkaasu nimankan waxay iyaguna caado u lahaan jireen dhar madmadow bay xidhan jireen koofiyadaha ay xidhaan geeso loo-aad bay ku xidhi jireen Mongooliyiintu geeso loo-aad bay ku xidhi jireen intuu faraskiisa isku dul taagay Katabqaana way buu ciidankii dhanaay la sheegay Qudus Masar buu keenan lahaa ma inta yar ay isku qabanaysaa kolkaas lagu yiri malaha qaar bay qaranayaan haba qariyaan qaar haday doonaan intani horta yeen halka dhaafin guud ninkan wuxuu ahaan jiray leeyahay nin xikmad badan oo dagaalyahan oo aad khabiir u ah laakiin maalinta way ka simbiray raaxatay ciidankan uu leeyahay hal maanta qabta uu leeyahay kuwa laga qaban karayo kontonkani maaha waa kuwa markay iyagu doonaan un meesha ka baxaya marka ay doonaanna way joogayaan konton kun oo isdhaarsatay weey warmaynu wada shahiidownaa mise waynu wada guuleysanaa weey umada taagan tahay qorshahooduna waxa weeyaan duhurka markay gaadhown inay meesha ka baxaan inta ka horeysa halka ninna laga ma dhaqaajin karo halkii baaba dhimashada dadku ay gaadhay tirada ka badata oo edeseebaad maanta maalin gelinkeedu la dagaalamaysan intan tirada yar ee arkayno ee seedu dhaafilaadi deseenu dhaafilaanay waa naga dhaafilay waxban isku la hadnayba wax walba sameeyno dhaaf weyn adigu kaale oo dhaaf yiraahdeen waa markaas ay dhinacii bidixda yaa soo dhaqaaday waa qorshiil isku ogaa nafsadii baa dhinacaas la garaacay xagga bidixda xigta nafsada marka la garaacay waxay dib soo baxay intiinaas haddana tii midigta la garaacay way soo baxeen tii dhaxa la garaacay way soo baxeen ciidankii Tataarka wixii dibadda joogay oo dhan dagaalka soo galay laaba meeshii banaanka soo wada galay adeebaan beeydi ba haddana ku dhufatay to kale taagagii baa laga soo dhaadhacay
ciidan inta la albaabka ka soo galeen buu ka tabqaanay way eegay way xidhantahay iyaduna oo halku ku khaldamay Soomaa ciidankiisi wuxuu ku jiraa circle oo buu dhax galay meel oo uu dhax ku dhex jira maalintii gelinkeedii dambe siiga iyo faras ciidiisa iyo gacanta go'aysa iyo lugta go'aysa mooyaan wax kale wala waay casarkii markay tahay muslimiinta hadana dhinacii bidix la kacay mar alla markii la kacay suldaanku taagnaa meel taagu taagnaa intuu soo dhaadhacay uu koofiyadii birta hay dhulka dhigay iyo waa islaama saddex jeer ku celiyay cid gaala iyo cid muslina oo meeshii ka dagaalamaysa codka way wada maqashay baa leeyahay qof walba markaas dadkii wada eegeen waa isagii oo seeftiisi galka kala baxay oo dagaalamay marka waxa la yiraahdaa haday garan lahaayeen tataarku ninkan ay aqoon hore u lahaan lahaayeen muuqiisa arki lahaayeen deentay ciidan soo weeraroon baa isaga la qaban lahaa ama isaga la dili lahaa laakiin ninkan askartan dagaalamaysa ku jiray iyo suldaanki cid garanaysaa ma jirto mid baa soo garab joogsaday wuxuu ku suldaan waa ku siday madkhal aamus buul ma cid bay garanaysaa dagaalano nadu anu shahaadan rabaa bulshada adigu shahaado rabto ma rabaa buul haddaan dhintana Umar bin Khattab maalin buu dhintay buuri Khalidna maalin buu dhintay buuri Salahuddin maalin buu dhintay buuri ana maalinteedan dhimanayaa buuri kii askariga markaa wax noqday inuu dagaalka halkiisa ka galo subaxdii dambe meydka lugta taagay ee dhintay mooyaane iyo faras laga cararay mooyaane iyo in yaroo jaha wareertay mooyaane tataarka waxba kama soo haray intiina waa la soo qabtay amarka uu bixiyay waxay noqotay inta la hayana ma arkaysan qof nooliyuna jirin nimankan wax naxariis inaga madxayaan wixii la qabtana waa khalaas يا أوجي يا دمر ريدي مشقة ولي كواحيرة تطارع حكمتهم مودا يين يدموك تدرك وضع هايستان أيان نن الله دري ولا أوجي ولا ما كي ولا لا ريدي مشقة بعد بنابح سوسي ما يكون صورة أنتينا خلاص أنتينا يا قابل تقدر كده لما معلومات كديوا معلومات الجماعة هيد عيد دي بشي صون بشي عيد الفطري أي سلطان كي عيد كيس سوقلين دمشق سوقلين صلاة عيدنا هالك يكتو كذين ضد كي مسلمين تاه odaygii holaako oo Tabriz jooga waa waqooyiga Iran iyo halka Turkiga iska galaan waa magaalo madaxdii hore Iran ay ahaan jirtay markii dawladaha hore ka jiri jireen ayaa halkii waxa ugu tagtay fariinta ciidankiisa sida loo galayo ragiisa oo dhan in la laayay oo aan wax ka badbaadi jirin isna dadkii maxaabiista Naasir Yusuf iyo inankiisii iyo dad badan oo kale muslimiin soo maxaabiis ma ahayn wixii oo dhan buu wada gowracay caadadii xanuunkii uu qaadayna ma bogsan booday xanuunkii buu ku dhintay soo ciidankaygu waa la soo jabiyay tataar baa la soo jabiyay yaa soo jabiyay reemasar kama soo noqon sidii uu xanuunsanayay uu taahayay uu rafaadsanaa ayuu halkii u geeriyooday Baybaris markaa isaga waxa la yiraahdaa ka hadhin nimankii daba socdo ilaa Xalab buu daba socdo ilaa waqooyiga Ciraaq markuu gaadhay ayaa waxa la yiraahdaa inta wixii ka dambeeya ciidamadeenu deyntaas ma baahin karaan halka lagu joogsaday nimanku iyagu hadda wixii Ciraaq xagga ka xigo oo dhan bay haystaan adduunyada illa cadaad ka soo baxdo ayay joogaan marka hadda ay soo abaabulana waxay doonaan bay sameyn karaan marka guusha ugu weyn ee uu sameeyay Baybaris uu sameeyay Qudus waxay noqotay hawsha ugu weyn oo uu qabtay nimankii balaayada ahaa inuu dadkii muslimiinta ka qabto waxyaabaha kale uu sameeyay waxa kamid ah xiriirkii dawladda ayuu aad u mesela Xalab دمشق لaba maalmood in fariinta lagu soo gaarsiiyo دمشق iyo Qaahirana 4 maalmood macnaheedu laba jimco kasta toddobaadkii laba jeer buu iyo helaysay dawladdiisu boqortooyada hareeraheega oo dhan ay fariintu soo gaarayso oo ay ka imanayso halkaas ayaynu maanta ku joojinaynaa wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh